MCH-ka hooyaday dhallaanka ee magaalada Naceelbe ee gobolka Hirsanaag ayaa saaka waxa booqday Sakariye Cabdi Madaxay oo ka mid ah dhalinyarada si weyn wax ugu soo baratay dalka dabadiisa. kadib saaka markii uu booqday MCH-ka hooyaday dhallaanka ee magaalada Naceelbe ayaa warbixin kooban waxaa ka siiyay Dr. Cabdilaahi Cabdi Ciise oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha MCH-ka hooyaday dhallaanka. Sakariye Cabdiraxmaan oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo hadda ka yimid dalka dabadiisa waxaan ku soo bartay aanan dhakhtar hadda nagu soo booqday xarunta caafimaadka MCH-ka hooyaday dhallaanka Ceelbo markaan ka warbixiyo MCH-ka waxyaabaha uu qabto iyo shaqadiisa horta MCH-ku wuxuu ka kooban yahay markii hore dhismihiisa markaan ka warbixiyo waa 3 maqsin oo kaliya inta hadda noo dhisan oo aan ku shaqeyno laba barkadood 4 god magaalada oo magaalo aad u waaxad weyn oo aad u ballaaran ma kaafi karo oo baahiyaheedii ma u dabooli karo waxa kale oo ku xiran baadiye aad u ballaaran oo wada garanaysaan waxa kale oo hoos yimaada tuulooyin aad u badan oo ilaa 8 tuulo oo halka soo doonta daawada nutrition-ka iyo talaalka marka waxaan u MCH-ku fuliyaa oo qaabila under 5-kii ofadii postnatal-kii antenatal-kii talaalka noocyadiisa kala duwan oo qaybo fara badan isugu jira oo hadda talaagadan hortaada kaaga muuqata oo ku wada jiro waxaan tabarucaad sameynaa marar badan aan tagnaa tuulooyinka nagu hareeraysan baadiyaha wiigan gudihiisa hadda waxaan kasoo shaqeynay caad saaran tuulada iyo baadiyaha aad ugu dhow oo sida waddan cunle magalayaal dooxa dheer meelahaas oo talaal ay ka jirto measles jadeeco ay ka dilaacday waan hadda talaalka soo fulinay wuxuu kale oo MCH-ku qabtaa nutrition-ka noocyadiisa kala duwan sida kan loo yaqaan MCH-ka oo ah ka hortagga nafaqa darrada heerka dhexe oo TSOB oo nagala shaqeyso qola team ah oo ka socda hay'adda Save Children OTB-ga oo ah nafaqada heerka u hooseeya oo aan ku qaabilno carruurta oo naga saacido hay'adda Tadaamun oo keenta buskulka iyo waxyaabo kale oo loogu daro marka shaqada MCH-ku qabto waa shaqada hooyooyinka postnatal-ka antenatal-ka oo kale hooyooyinka uurka iyo hooyooyinka nuujinaya yana waan ugu adeegnaa oo maalin kasta waxaan soo booqday 10 hooyo 8 hooyo 6 hooyo maalinba in waan halka ugu adeegnaa carruurta oo kale 5 sano ka hooseysa carruur aad badan baan soo booqataa bishii oo kale report-keeda markaan celcelisaan ku tilmaamo ilaa 250 300 meelahaas oo under baan qaabilnaa hooyooyinka oo kale 100 postnatal-ka oo kale antenatal-ka oo kale ilaa 120 130 140 bil baan bino waxaan hadda wadnaa qolka delivery-ga oo aan rabnay inaan ku kordhino oo iyadoo magaalada aad weyn tahay aan lahayn meel delivery ama qolka laga umulinayo hooyooyinka aan hadda gacanta community-ga magaalada iyo anagoo aan isku dardar ka sameynay aan ku wadnaa MCH xaqiisa damaad arki doontaan shaqooyinka MCH ku qabto waxyaabahaas ka mid ah aan uga warbixinayo Dr. Sakariye Cabdiraxmaan Maxamed marka shaqooyinka MCH ku qabto shaqooyinkaas weeye waa rumaantii booqashada Dr. Sakariye Cabdi Madaxay ee uu saaka ku booqday MCH-ka hooyaday dhallaanka ee magaalada Naceelbe ayaa uga mahadceliyay dhakhaatiirta sida voluntary-ga ah uga shaqeysa MCH-ka hooyaday dhallaanka ee magaalada Naceelbe iyo kaalinta ay u hayaan wuxuuna jaaliyada dalka dabadiisa ee gobolka Hirsanaag ugu baaqay in markaasi MCH-ka hooyaday dhallaanka si weyn looga qayb qaato bilaabo bismillaah raxmaani raxiim Cabdullaahi aad buu mahadsan yahay warbixinta gaaban oo siiyay oo la xiriirta MCH-ka magaalada marka xaqiiqatan aad baan ugu farxay riboodyada iyo warbixinada ay u gudbinayaan wasaaradda caafimaadka waxa kale oo aad i cajibiyay in dhowr boqol oo ciyaar ay meeshan wax ugu qabtaan iyo maamooyin boqol gaaraya marka taasna waxay cadeynaysaa in magaaladu ay weyn tahay
una baahan tahay wax ka weyn MCH oo yani dadkii ay u qabtaa waxay u baahnaayeen hadda caafimaadkuna waa wax muhiima haddii ay magaalada caafimaadku ka yahay wax aan tayeysnayn waxa weeye insha Allah magaaladii dadkii wax ka cararayaan ma garan marka insha Allah ka anaga shakhsiyan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan haddii ilaahay qadaro mustaqbalka inaan medical missions iyo medical dental missions oo volunteer inaan insha Allah magaalada keeno hadduu rabbi idmo mustaqbalka oo dadka si volunteer insha Allah vaccination bay hadda sheegeen marka talaaladana la badiyo oo talaalada pneumonia oo kale talaalka taytanada oo kale talaalka hepatitis oo kale oo aad iyo aad muhiim waa insha Allah in magaranaysa MCH la keeno oo insha Allah dadkii loogu adeego bulshadana magaalada ay badatay caafimaadkuna waa inuu la jaanqaado oo baahida magaalada caafimaadka ku xidhan yahay marka MCH meesha jira waa MCH amal waqtigii magaalada tuula ahayd loogu talagalay marka waa inuu ka weynaadaa waqtigii hore uu ahaa kana wax qabad badan yahay oo serviceka uu dadka siinaya ay ka badan yihiin inta uu hadda qabto marka insha Allah magaalada dad bay leedahay dadkaasina insha Allah waxaan ka rajaynayaa inay magaalada caawiyaan oo ay magaalada wax soo taraan insha Allah haddii noqoto caafimaadka oo aad iyo aad muhiim ugu ah marka aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta MCH ka imi arkayna hawshaasi u socoto aadna waa ugu farxay ilaahayna waxaan uga rajaynayaa inuu meeshan ka wacan insha Allah aan marka dambe aan soo booqdo magaalada aan ku arko aad baan u salaamantihiin ugu dambeyntiina Sakariya Cabdi Madaxay ayaa MCH-ka hooyada dhallaanka wuxuu ugu deeqay 10 kiish oo sibira oo markaas uu kaga qayb qaadanayo dhismaha haatan qabyada ah ee MCH-ka hooyada dhallaanka ee cusub ee lagu soo kordhiyay ayna ku soo kordhisay bulshada ku nool magaalada Ceelbu oo si iska wax u qabsaa ugu soo kordhisay waa Axmed Cabdillaahi Ciise Cashuur magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag.